kulan wanaagsan daawada halkani waa channelka wararka ee Soomaali News ku soo dhawaada tabinteena qodobada idinku soo gudbi doona waxa qaybka guddoonka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya oo iscasilay sababta ka dambaysa oo la ogaaday Puntland oo ku dhawaaqday deegaan doorashada labaad ee maamulkaasi iyo caqabada xilligan ku horgudban doorashada ka dhici doonta magaalada Boosaaso saameyntii ka dhalatay weerarada xalay isugu jira qaraxyada iyo dagaalada ka dhacay magaalada Muqdisho oo baahday iyo jirdalay ciqaab xoogan oo lagu kacay qaar kamid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho maantay iyo doorashooyinka kala dhacay magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Baraawe ayaan warkeedun kula wadaagi doona qodobada iyo kuwa kale u diyaar garoobo oo ayna faahfaahintooda goor dhow guda galno markale kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal waa 16 Febraayo 2022 waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad maqasheen iyo kuwa kale oo ayna faahfaahintooda aan baqaadno haddii ayna ku hormarno gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab oo shir jiraad ku qabtay magaalada Muqdisho caasimadda dalka ayaa sheegay inuu iska casilay xilkii uu muddada hayay Cabdiqani oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sababta iscasilaadiisa ku sheegay inuu isagoo u naxayo kubadda cagta Soomaaliya taasina ay keentay iscasilaadiisa waxa uu xuseynaysan jirin cadaadis iyo cid ku qasabtay inuu xilkaasi iska casilo waxaanu ku baaqin doorashada xiriirka la qabto taasoo loo ballansan yahay dhamaadka sanadkani iscasilaada Cabdiqani Carab ayaa ku socdaysa xilli xiriirka kubadda cagta Soomaaliya uu ku kala jabay laba qaybood oo kala hogaaminayeen Cali Shiin iyo Cabdiqani oo kala ahaa gudoomiye iyo ku-xigeen sidoo uu qaba sharciga xiriirka kubadda cagta Soomaaliya waxa xilka gudoomiyaha sii hay doona Cali Shiin oo ku-xigeen ah oo laga gaaray inta laga gaarayo doorashada xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya ee sanadkan dabayaqadiisa dhici doonto Cabdiqani Saciid Carab ayaa muddo ka badan 7 sano hayay xilka guddoonka xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya walow jiraan shaqooyin soo qabta haddana dadka arrimaha isboortiga ayaa aad ugu dhaliilaya maadaama ay sheegeen inuu ka gaabiyo shaqadii loo egmaday isla markaana danihiisa gaarka uu ku mashquulay Cabdiqani Saciid Carab oo maanta sheegay inuu xilkaasi iska casilay inkastoo xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya waayihii dambe wada kabasho xoogan ee dalka sidoo uu dhismaya si la mid ah haddana waxyaabaha ugu badan ee saameeya waxa qayb ka ahayd xiriirka kubadda cagta madaxda ugu sareyso arrimo siyaasadeed ay ka dhex taagnaayeen iyo sidoo kale khilaaf xoogan oo sababay dibudhacyo iyo saameyn dhanka isboortiga ee soo wajahday waayihii dambe markaana maamulka Puntland ayaa shaaciyay deegaan doorashada labaad ee kuraasta ugu horeeyay oo lagu qaban doono magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari guddiga sida ee Puntland ayaa shaaciyay qaybo kamid ah kuraasta ugu horeeyay ee deegaan doorashada labaad ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari kuwaas oo lagu qaban doono maalmaha soo socdo guddiga doorashooyinka Puntland ayaa soo saaray liiska 16 kursi oo dhawaan lagu qaban doono magaalada Boosaaso kuwaas oo kala ah Hoob 220, Hoob 169, Hoob 76, Hoob 149, Hoob 157, Hoob 142, Hoob 227, Hoob 190, Hoob 228, Hoob 238, Hoob 273, Hoob 83, Hoob 222, Hoob 36, Hoob 27, Hoob 158 oo dhamaantood lagu qaban doono magaalada Boosaaso maalmaha soo aadan sidoo kale warqadda ka soo baxday guddiga ayaa lagu sheegay in jadwalka doorashada kuraastan sida ay u kala horeeyaan ay gadaal ka faahfaahin doonaan tilaabadan ayaa qayb ka ah fulinta heshiiska doorashooyinka ee lagu gaaray magaalada Muqdisho sida uu ku shaaciyo guddiga doorashooyinka maamulka Puntland waxaana dhawaan la qorsheynayaa in magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ay ka bilaabato doorashada deegaan doorashada labaad ee maamulka Puntland maadaama waqti kooban ay ka harsan tahay waqtigii loogu talagalay in lagu soo gabangabeeyo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya shirkii ugu dambeeyay golaha wada tashiga qaranka lagu jiheeyo doorashada dhameystirkeedana oo ahaa 25 bishan Febraayo oo 9 bari oo kaliya ay naga xigtay in lagu soo gabangabeeyo macadda sida maamulada kale ee Puntland la midka ah ay u soo dhameey doonaan doorashada Jubbaland sidoo kale waxay shaacisay kuraas lagu qaban doono Kismaayo dhawaan walow inta badan ay maamulada Puntland Jubbaland Galmudug iyo sidoo kale Hiirshabelle ay ka harsan tahay kuraas badan marka laga reebo Koonfur Galbeed iyo xildhibaanada gobolada waqooyi oo ay ka gabagaba ku dhow shaacinta guddiga doorashooyinka maamulka Puntland ee liiskan 16 kursi ee lagu qaban doono dhawaan magaalada Boosaaso ee deegaan doorashada labaad ee maamulka Puntland ayaa isla markaana waxa ka jira caqabado qayb ka tahay dagaaladii waayihii dambe ka dhacay magaaladaasi inkastoo badi isfahan laga gaaray haddana waa deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka Puntland markaana Muqdisho
iyadoo xalay weeraro qaraxyo iyo isugu jira dagaalo toos al-shabaab ay ku qaadeen dhinacyada magaalada Muqdisho si gaar ah degmada Kaxda Siligeeda iyo sidoo kale deegaanka Daarusalaam waxaa ka dhashay khasaare xooggan oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur xooggan oo soo gaaray goobihii la weeraray. qaar ka mid ah suxufiyiinta ka howlgala warbaahinta madaxa bannaan ee magaalada Muqdisho oo isku diyaarinaya tabinta dhibaatadii ka dhalatay weerarada xalay ka dhacay saldhigga degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho ayaa ciidamada Haramcad waxay isugu dareen jirdil iyo xarig kuwaas oo kuwa sharci darro isla markaana wariyaashan oo saaka aaday degmada Kaxda ee gobolka Banaadir si ay u soo tabiyaan wararka ku saabsan weeraradii ka dhacay degmada Kaxda oo mas'uuliyadooda ay sheegteen al-shabaab waxayna ciidamada kula kaceen fal dhibaateynaya suxufiyiinta waxaana korkacaya taliyaha ciidamada Haramcad Fanax. wariyaashan ayaa loo geystay jirdil xooggan waxaana ka kala tirsanayay warbaahinada 5 Somali TV, Somali Cable iyo Dalsan. isla markaana waxyaabaha lagula kacay wariyaashan waxaa qayb ka ah in dhammaanba indhaha loo duubay isla markaana shaararkooda lagu xiray gacnaha iyo lugaha la isugu xiray goob qorraxda aad u kulushaho bacaadana la dhigay isla markaana figal loo jeediyay iyadoo ciidamada ay roondo ku dul sameynayeen ilaa iyo hadda ma cadda sababta loo xiray wariyaashaas marka laga reebay in howlo shaqo oo halkaasi u tagay inay soo tabiyaan khasaarihii ka dhashay weeraradii xalay al-shabaab ay ku adeegsadeen iyo dagaaladii tooska ah saldhigga degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Bahda warbaahinta iyo sidoo kale ururada kale u doodahayana aad u cambaareeyay falka lagula kacay wariyaasha qaar ka mid ah ee ka howlgala magaalada Muqdisho warbaahinta madaxa bannaan. weeraradii xalay ka kala dhacay daafaha magaalada Muqdisho waxaa ka dhashay khasaare xooggan iyadoona dadka aad arrimaha siyaasadda u faallooda ay sheegayaan inay tahay mid looga dan lahaa qalqalgelinta doorashada dalka ka socoto. qaar kale ayaa qaba in al-shabaab ay la soo galaan ay tahay dhibaato xooggan oo 2011 laga saaray Muqdisho gaadiid iyo sidoo kale hub fara badan isla markaana xarumaha muhiimka ee dowladda ay weerar ku ekeeyaan taas oo ka muuqato sida amniga faraha uga sii baxayo. booliska Soomaaliya ayaana xaqiijiyay in xalay weerarka al-shabaabki ku qaaday goobahaasi ay kala baxeen hub iyo sidoo kale gaadiid ay dowladda lahayd inkastoo ay sheegeen inay jirto howlgallo lagu soo qabanayo dad ka dambeeya falalkaasi. haddana al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi isla markaana xusay inay baabuur qayb ka mid ah kuwa booliska degmada Kaxda ay lahaayeen oo ilaa 2 gaaraya ay kala baxeen halkaasi sidoo kalena khasaare xooggan ee gaarsiiyeen deegaanka Daarusalaam oo ay ku weerareen gudoomiyaha amniga ee degmada Hilwaa halkaasi degana. khasaare ilaa 16 gaaraya ayaa deegaankaasi ka dhacay. si lamida Kaxda waxaa ku dhintay ciidamo iyo dad shacab ah waxaana burbur xooggan uu soo gaaray goobihii ka agdhawaa ee dadka shacabka ay lahaayeen iyo saldhigga oo qaraxyo ilaa 2 gaaraya lagu dhufto oo dhammaantiisba dhulka la dhigay sida ka muuqata sawirro iyo muuqaalo laga soo duubay ee baraha bulshada la soo dhigay. saraakiisha ciidamada qalabka sidaha ayaa si gaar ah tiro dhowr jeer hore looga digay inaysan ku milmin arrimaha siyaasadda dalkan xilligan jahwareerka ku jiro waxaana afayeenka ciidamada oo maanta warbaahinta la hadlo oo ka hadlaya khasaaraha weeraradaas al-shabaab xalay ku ekeeyeen aafaha gobolka Banaadir ka hadlaya waxa uu xusay in looga baahan yahay ciidamada inay ka fogjignaadaan weerar kale oo suurtagal tahay in al-shabaab ay ku qaadaan goobo kale oo muhiim ah shacabkan ilaamaha amniga kala shaqeeyaan sugitaanka caasimadda si aysan u dhicin falalka noocan oo kala hawaayihii dambaba Muqdisho aysan ku badnaynin. markana Barawe magaalada Barawe ee xarunta caasimadu ah maamulka Koonfur Galbeed ee ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose waxaa maanta lagu qabtay doorashada 7 kursi oo golaha shacabka ee baarlamaanka 11 ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. natiijada kuraastan oo ahaa kuwa horey loo soo ogaa isla markaana shakhsiyaadka ku soo baxay loo saadaalinayay ayaa waxaa lagu doortay maanta 7 xubnood oo ka mid noqonaya golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ahna xildhibaanadii labaad ee ku soo baxay deegaan doorashada maamulkaas ee labaad ee magaalada Barawe. magaalada Barawe oo lagu doortay ilaa 20 xildhibaan ayaa la filayaa in maalinta biriya doorashada inta ka hartay 6 kursi ah la soo gabangabeeyo sidaas ayana maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya u soo dhameeyay kuraasta deegaan doorashada maamulkaas oo tii labaad oo haatan waday ee magaalada Barawe caasimada Koonfur Galbeed ka socotay. inkastoo doorashada dalka ay ku gadaabantahay doodo badan oo ah musuqmaasuq iyo sidoo kale boob aan u hareeyay ta Koonfur Galbeed kuma sii jirto oo waxaa laga cabanayaa sida uu lafta gareen u maareeyo xildhibaanada ka imaanaya maamulkaas maadaama la sheegay inay fila Soomaaliya inta badanba maamulka doorashadaasi ay iyaga dhankooda ka imaanaya amarada ka yimaadeen oo fulinaya madaxweynaha maamulkaasi. dhinaca kale wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka Galmudug Farxaan Cali Maxamuud ayaa maanta dhankiisa ku guuleystay kursi golaha aqalka sare ee baarlamaanka 11 ee Soomaaliya oo horey u baneeyay xildhibaan Yuusuf Geelo Ugaas Dhagey oo iska casila kursigaas aqalka sare. kursigan ayaa banaanaa tan iyo November 2021 uu iska casilay Yuusuf Geele
oo kursi golaha shacabka ee baarlamaanka 11 oo doorashadiisa ka dhacday magaalada Dhuusamareeb mar kale ku guuleystay. codaynta Farxaan Maxamuud ayaa waxay ka dhacday qaab gacantaaga kadib markii uu tanaasushay Naciimo Yuusuf oo la tartamaysay 80 xildhibaan oo baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaana u codaysay. madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa 12 bishan Febraayo 2022 soo gudbiyay warqadda ay ku xusnaayeen magacyada musharaxiinta u tartami karta kursigaasi maadaama si gooni ah ugu xirnaa wasiirka maaliyadda Galmudug isla markaana loo sii saadaalinayay guddiga doorashooyinka hirgelinta dowlad goboleedka dadban ee Galmudug ee Said Maxamed Daahir Guuleed ayaana sheegay inuu xubin ka mid ah golaha aqalka sare uu sidaas ku noqday wasiirka maaliyadda maamulka Galmudug Farxaan Cali Maxamuud oo waayihii dambaba kursigaasi u loolamay sidoo ugu guuleysan lahaa. inta ayaan ku soo afmeerinaa qiyaaray warkii aad kala socoteen channelka wararka ee Somali News mid lamid inta kulmi doona waxaan leenahay nabadgelyo.